يا منزل القرآن يا خالق الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، باب تحريم لباس الحرير على الرجال. baabkan wuxuu baab yahay xaramada xariirta labashadeeda, inay ragga xariirta ay labistaan xaramadeeda ayuu u baab yahay. can camr bn khadaab radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa talbasu alxariira faina man labisahu fi dunya lam yalbashu fi laakhira. muttafaqun calayh. في هذا الحديث تحريم لباس الحرير على الرجال. baabka wuxuu baab yahay xariirta xirashadeeda, inay ragga xirtaan iyo inay xaaraan tahay. xadiiska koowaad waa xadiiskan buqaari markuu soo saaray. nabi wuxuu yidhi laa talbasu alxariira, xariirta ha xarinina faina man labisahu ruuxii xidha fi dunyaa adduunka ku xidha lam yalbasahu fi laakhira aakhira ku xiran maayo. xadiiskan wuxuu faa'iideynayaa xirashada inay xidhaan waa ragga waa loo jeedaa, sida axaadiis kale noo soo socota waxay tilmaamayaan inay xalaal u tahay dumarka, laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa ragga xaaraan bay ka tahay inay xidhaan, ay labistaan, ay qaataan, xaaraan ku tahay. kan keli maaha asiga iyo dahabka ba. marka xadiiska taas ayuu faa'iideeyey. wa fi xadiisi canhu hadaas damiirkaas ayaa waxaa loo naqayaa cumar bn khadaab radi allahu canhu. wuxuu yidhi cumar bn khadaab qaal wuxuu yidhi samictu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii allah waxaan ka maqlay yaquulu asagoo odhanaya inamaa yalbasahu alxariira man laa khalaqa lah. waxaa xariirta xidha qofaan nasiib aan u sugnaanin. qofkan muttafaqun calayhi, waxaa nasiib aan u sugnaanin ayaa xidha. wa fii riwaayati albukhaari wasan waxaa weeyaan riwaayadii kale bukhaari ku sugan ayaa sharxday oo ah man laa khalaqa lahu fi laakhira, yacni man laa khalaqa lahu yusuu ku yidhi qofka xidha xariirta waa ruuxan nasiib aan u sugnaanin. nasiibka xagee? ma adduunya aanqarba, ma aanqari keliba, ma adduun keliba? yaa kala saaraya. waa fi xadiisi oo hadda sheegnay bukhaari wuxuu yidhi nebi aanqari nasiib uma sugnaanin. waa ay laa nasiiba lah, qofaan aanqara nasiib toon kuma laha. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. في هذا الحديث حديث كاس ووعيد شديد على من لا لبس الحرير وقونتي أدك قفكي حدا حريرتا qofka xidha goonti u tahay, yacni waxa weeyaan laga faa'iidayaa waxa xidha xariirta adduunka ku xirtaay aakhiro isna xiran maayo, cadaabna wuu leeyahayoo dembi wuu dembaabay. maxaa yeele waxa laga xaramay xaaraan buu ka dhacay weeyaan. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديثين جواز لباس الحرير والذهب للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu yidhi
xurama libaasu alxariiri wadahabi calaa dukuri ummatii. waxaa laga xarimay inay ragga libaasul xariiri xirashada xariirta iyo wadahabi dahabkaba waxaa laga xarimay calaa dukuri ummatii ummadeyda raggooda labkooda oo ah ragga way ma u banaana inay xidhaan, laakiin waa uxilla waxaa loo xalaaleeyay xariirta iyo dahabkaba liinaasihim dhedegooda oo ah dumarka. xadiiskan Tirmidhi baa wariyay. Tirmidhi wuxuu yidhi xadiisun xasan saxiix. waa xadiis xasan oo saxiix ah weeyaan. ma xasan baa ma saxiix baa? xadiiskan wuxuu faa'iideynayaa inuu xariirta iyo dahabka u bannaan yahay inay xidhaan dumarka, sida xadiiska kusoo koronay inay xaaraan ku tahay ragga inay xidhaan. xadiiskan labadaba wuu sheegay, laakiin wuxuu qaas u sheegay inay xariirta iyo dahabka ay qaadan karaan dumarka. calaa kulli xaal, marka xariirta iyo dahabka uma banaana inay xidhaan ragga ilaa xaalad duruur mooye. limaada? ruux inuu dhibaato iyo wax kalifi kara inuu qaatay inay keento mooyaane inuu iska qaatay asalka waxaa waa xaaraan. waxaa jira shay asalkiisa xaaraan yahay maca daruura loo fasaxaya. hadda xariirtan waa taqaanaan ninkii sankii gogo'ayay oo fidnada ku xidhay, fidadii ay urtay kabacdi nabiga sallam san dahab ah haloo sameeyo. dahabkii ayaa san looga dhigay. maxaa yeelay haduu fidada maxaa yeelay haddii way urtaa way isdoorisaa, laakiin dahabka sidiis buu ahaanayaa. marna wuxuu yidhi dahab uu bedela dahab waxay dhaw yidhi sallam. marka dahabkaas xaaraan buu ragga ka ahaayay. waxaa sabab ninkaas loo xiro waa maxay? lihaada duruur wey.